wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha ee Soomaaliland oo socdaal ku yimid magaalada Berbera ayaa kulan la qaatay maamulka iyo shaqaaleynaha wakaaladda biyaha ee Berbera waxaana wasiirku ugu horeyn uu kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee wakaaladda iyo waliba waxyaabihii ay ku soo kordhiyeen maamulkan cusub ee xilka haya waxa uu la kulmay shaqaaleynaha ku hawlgala xarunta wakaaladda biyaha ee Berbera wasiirka ayaa intaasi kadib waxa halkaasi warbixin ka siiyay ugana warramay hawlaha shaqo ee wakaaladda biyaha Berbera iyo waliba waxyaabihii ay qabteen muddooyinkii u dambeeyay agaasimayaal ka tirsan waxyaha kala gedisan ee wakaaladda biyaha Berbera shaqaalaha imika wakaaladda jooga tiradoodu intan kuma eka way badan yihiin ceelashay joogan mishiinaday joogan goobo badan oo saydhar badan oo dibadda ay joogan kaydadka biyaha joogan intan oo kaliya kuma koobna warbixinta shaqaalaha bidqabka shaqaaluhu boqolkiiba boqol wakaaladda biyaha Berbera oo ku jirta muddo 30 sanadood oo xilligii ugu wanaagsanaa ay soo marto adigana waan kugu soo dhawaynaynaa biyihii magaaladu way fiican yihiin inkastoo raxmaadku imika yaryar yahay ceelashayaduna ay u badan yihiin ceelasha raxmaadka ku xidhan waa ceelal gagaaba marka raxmaadku yaraado kulli ceelashu hoos bay u dhacaan doona wasiir saydad magaalada lagu soo kordhiyay magaaladii way ballaaranaysaa wali ka weynaanaysaa intii hore Maariya ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee Berbera Abubakar Bila Isaaq iyo sidoo kale maariyaha wakaaladda biyaha Berbera Salebaan Cabdiraxmaan Looli oo iyaguna halkaasi kala hadlay wasiirka ayaa uga warramay hawlaha shaqo iyo waxyaabihii uu qabsamay wakaaladda biyaha ee Berbera rag iyo dumarba waxa weeye shaqaale waxa weeye 24 saacadood baheegana oo carbisan shaqadii waxa weeye qaranka oo mas'uulka uga hayna noo igmaday ayun baan ku jirnaa oo waajibaadka iyaga shaqo waxa weeye in cidna abaalka kama rabno waa mas'uuliyadina saarneed saacadu wasiir halkan aynu maanta fadhinaa haday noqoto barxadan iyo haday dhismayaasha noqoto iyo haday labada qol noqoto iyo dhamaan qasnada iyo xafiisyada dhamaantood waanu qalabaynay wax yarba imika wax noogu harsan yihiin halkan container oo li jiray xafiisyadaana jingadaas reewan ka wada bedelay oo meeshu way wada durhoorisay waqtiga may jirin meel aanu dad ku qaabilo may jirin meel aanu dad kula hadallo kuraasta aanu shaqaaluhu ku fadhiistaan ee maalintii xafladii aan xilka kula wareegaynay kuraastan yar ee cadcad ee hodheelada wax ku iibiyaan baa naloo soo kiriyo waliba kiraa baan ugu nimi dunuuf adag baan ku wada bilownay meel fiican baanu maanta wada maraynaa baan u malanayaa laakiin waqtigaan wax wada bilaabaynay meel aanad qiyaasi karin baan ku wada bilownay alxamdulillaah rabbil caalamiin 3 sanadood oo imika xafiiska joognay waxaan u kordhinay sanad walba bisha 10aad ayaanu waxaan waliba u qalmin aanu kordhinay oo 15% ka ugu yar aanu kordhinay shaqaalaha ugu badan ugu tirada badan leh inta kale agaasimayaashii madaxweynaha ay ka yara sareeyeen wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Ali Marreexaan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa dhiirigeliyay shaqaaleynaha wakaaladda biyaha Berbera sidoo kale maamulkan uga mahadnaqay waxyaabaha ay wakaaladda ka qabteen tan iyo intii ay xilka hayeen shaqadana haysaan waa shaqo aad u muhiim ah oo adeegii biyaha ee magaalada waxa imika waa kii maariyaha iyo madaxdiinu sheegayay lahaa shaqo adag bay hayaan waa dhab malaha ciidanka qaranka un baaba iyo idinku isku mid baatiin marka xaqiiqada lagu hadlo dan guud baa haysaan waliba tii ugu muhiimsaneed baa haysaan markaa shaqadaa qabanaysaan ee haysaan ku qanacsanaada inaad dalkiina iyo dadkiina u shaqaynaysaan wanaagsan baa insha Allah aynu rajaynaynaa Berbera biyaheedana horta mar haddaad haysato kaydka underground waterka waxa kale oo dhan iska sahal Berbera way haysataa lagama dayriyo biyaha underground waterka ah ee ku jira magaalada hareeraheeda dhulka biyaha laga soo bamgareeyo ceelasha lagu sameeyo mar haddaad kuwa haysatana ceelashana waad badsanaysaa beeblaynka biyaha soo qaadana waad badsanaysaa marka wax fudud culays weyn oo laga warwaro mustaqbalki Berbera oo biyo la'aan ma jiro Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera